بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد horta markii uu farmaajo yiri dhexdhexaad baan nahay ee u horeysay dhageystay ayaan subaxdiiba ku soo diyaar garoobay in aan wasiirada aan raashid degdeg qabsado halka oo maray halka ka soo jeeda qabsada waan ku soo dhaqaaqay waan ku madaxtooyadii saraakiisha madaxtooyada badankooda waan u sheegay haddii bayd maayo wasiirka duulistana oo markaa shirka sii gelayayna waxaan ku yidhi arrintaa iga qaad arrintaa waa inaa si degdega uga fadhiisataan waayo waa laynoo soo laaday kubaddii iyadoon goolwadana joogin waxaa la yidhi waqtaasay dhashada xornimadii ayuu farmaajeeda yidhi kol hadduu halkaa maray halka ka soo horjeeda haddii aynu mari weyno dee waxaanu nahay markaa nimadu xukumayso oo hadalkiisii lahay waanu saasaanu yeelaynaa buuli way galeen waxaa lay sheegay inay dabeedna isku khilaafeen aragtidii ay wateen wasiirka madaxtooyada iyo ka duulistu oo ra'yi kale ka hor yimi waxba magacaabi maayo imika laakiin waxay ku heshiiyeen inay dib uga fiirsadaan arrintaa markii aan taa ogaaday ayaan doonay inaan dabeedna habeenkiis khamiistii baa jalahayn moogtahay inaan ayaan la ballamay ibraahim cismaan hagollayus ayaan idhi aroorta subaxnimada jimcaha duubno kol hadday ku dhawaaqi waayeen inaynu arrintaasi ay muujinayso inaynu dee markaa maamul goboleed nahay haddii kale aynu haddii bada dabeedna waa kaa ibraahim way hor joogaa sidaasaan ku balanay dabeedna haddana nus saac dabadeed ayaanu teleefon lagu soo diray wuxuu yidhi warbarista waa maalin cibaadee sabtida inooga dhig sabtidii baanu ka dhiganay subaxnimadii ayaan imi haddii bayd maayo halka la yidhaaho golaha golihii oo ay joogaan saxaafadii oo dhammi ayuunbaa tiri maxay kula tahay waxaan yidhi waxaa la ii nuuriyey ictiraafkeeniyo barbanaan yaala barbanaan yaala haddaynu soo qaadanayno oo waa maxay waxa weeyaan maanta oo aynu nidhaaho ilaahay nooma simin carabta iyo maanta haddii beled adduunka qolaana ictiraaftay annagoo 35 sano annagoo 30 sannadood cunaqabatay sidaa qadar ku jira oo cidna nala hadli weyday dalka iyaga cidda aragtay inuu yahay dal wanaagsan oo nabad qaba oo maalgashi la gashan karo imaaraadka arkay annagu dad iskuma jireen halkaa imaaraadku maray baanu maraynaa ayaan doonayaa in la yidhaaho waa inaynu isaan lahaa haddaynu odhan weynana de waxaynu noqonaynaa nooc kale waxaana leeyahay arrintaasi waa fursad dahaba oo maanta ayna hortimi ee aan arrintaa lagu dhawaaqo isla subaxdii ayay iyaguna shir degdega qabsadeen oo shiraan caadi ahayn qabsadeen wasiiradii arrintiiba iyaguna ku dhawaaqeen waxaan uga horreeyay hawada dhowr saacadood ayay dabadee iyaguna ay soo geliyeen inay isku raaceen in halkaa la qoro okay maanta waxaa muuqata in midhaheedii wax ka muuqdaan waxaana ii muuqata fursad kale oo tii maalintaa lay nuuriyey oo kale la mid ah oo aan leeyahay arrinta ugu weyn ee tan ka sii weyn baasaboorkaba waxa weeye xoolihii Somaliland oo xidhan maanta waxa weeye xoolaha iyaga macradaa ku leediin berbera haddii beentaasoo baxshan baa lagu leeyahay intaasoo meelooda caafimaad bay marayaan xoolan caafimaad qabaan idiin soo diraynaa hana loo furo xoolihii maanta oo xoolihiina la iloo furo oo aynu noqono geeska Afrika xoolahoodii inaynu inagu daweyno oo ka dhoofin halka iyo xoolaheenniiba maanta waxay noqonaysaa wax ictiraafkaba ka sii qiimo weyn waxaan leeyahay wasiirada iyo madaxweynaha iyo cidda tagtay maanta ku maqan dhulka carabta ama imaaraadka haata ama sacuudiga haatee waa inay arrintaa ka faa'iidaystaan oo ay xoogga saaraan sidii xoolihii laynoogu furi lahaa midka aan leeyahay ka daba diraya wasiirada shalayta dhoofay iyo madaxweynihii iyo kasii horreeyeyba waxaan ka daba dirayaa inay xoogga saaraan in xoolihii naloo furo